qaybtii labaad iyo curyaankii khiyaamada badnaa adigu ninkiisa oo sun buujin markaas wuxuu dhahay ma reer baad leedahay markaasaan dhahaa ninkayga iyo inankayga waa kuwana ninkaagu ma curyaanba maxaa wilshirka ku fadhiisay ha waa baaralays laakiin I love it waa my dreamki saa maa dhihin laakiin adigu si u eeg baan dhahay dee ayuu dhaha anigana waan iska tegay gabadha yar dilaayaan ka tegay gacanta isagu lahayd bye bye waa inoo jannada adigu waa inoo jannadu ma yahayn laakiin dee bye bye igu lahayd raalli ahaada galabtaas ka farxsanay ma aqaano maanta dhashayna ma haysnin ma ahayn amar ya xaasil gurigaygii baan kusoo laabtay sheekadaa kale halkaa haynoo joogto xaggaynu ka nimi ninkaygiiyo inankaygiio aan leey warqadiisina isagu yiri kuma siinay warqadii soo maaha sheekadan kale halkaa haynoo joogto gurigii dib inoogu celiya gurigii baan kusoo laabtay waxaan ku dhahay aniga warqadeydii baan rabaa kuma siino divorce inankaygana waan gaxaysin inankaygu tuuri nasiida kuma raacayna dhaaf doqon yahay ma aniga wuxuu maa furtid aabihii ag taagan waaba doqone maxaad ku falaysaa waxaan dhahay ma aniga wuxuu anigu adduunkan kuu nacbahay banaanku wuu cararay banaanka bildinkaanu degan anaga kiroolayaal baanu nahay apartmentkii isku soo jeeda bildinka hortiisa waxa ku yaala swimming poolkii bis dul taagay waanu imi hooyo maxaa kugu dhacay maxaa kaa cadhaysiiyey garabkaan sida ka taabo hay taaban waxaan isku tuuray suumo ha isku tuurin markaana wuu iiga baneey anigii baa jaf fidhi weliba isagaa igu riixay meesha baan ku dhex dhacay aniga dabaasha maaqan waa fiid goorto apartmentga cid banaanka joogta ma jirto waan qaylay hooyay badbaadi aabba igu wac cid kale igu wac dariska igu wac cali iyo caasho u wac male wuxuu maad dhimatid adiga waa manku dhibsadee maad dhimatid horta waa ku sidee sallu calaa nabi calayhi salaam saamu dhahay laakiin taas igu dhaw ma isaasu igu dhahay isagu sallu calaa nabi mu dhahay laakiin saas igu dhaw wuxuu maad dhimatid waan ku nacnaybe waxa igu wardamaysay isagu ereyada igu siile ayna nagu miyir beelon biyihii quusay isagu gurigiisii buu iskaga laabtay ma xasuusataa ninkii inanta yar dhalay ee aan waddada ka badbaadiyey ilaa iyo maalintiiba malaha dabagalba igu hayo wuxuu raadinayay ma markiiba isoo dabagalay ma cid kaluu iisoo dirtay husnow dabeetana waxaan miyirsaday anigoo sariir ku jiifo qol dhaxaalo goortuna ay subaxtay markaasaan soo booday dhar caadiyaan xidhnaa inantii yarad baa iisoo gashay linda markaasay dhahday maamo halkan maxay keenay maamo waxaa kasoo dabagala odag yara 60 jirka markaas wuxuu dhahay marwa soo dhawow layla swimming pool baad ku dhacday waanad ku miyir beeshay waxaana kusoo badbaadiyey hebel saal hebel waayo inanta yaraa baheed kii maalintii ahaa maan odhan siduu igu soo waxaan waa mahadsantiin reeriyo isagii imika shaqadu aada laygu yiri waxaan tahay gabadh yar adiguna mahadsanid awoow adiguna mahadsanid isagana iga gaarsiiye mahadsanida ku sii dhahade saas ku dhaha kadibna anigana waan iska tegey gurigii baan dib ugu laabtay alaabteedii baan kasoo urursaday meelaan aadama aqaano ninkaygu wuxuu xagaad aasay maxaa kaa galay meeshaan aadayaan ku dhahay wuxuu dhahay maadaa aniga iga maarmi kara raqiis baad tahay cid ku rabtaana ma jirto hadda waa kii curyaankan 7 sano ugu shaqaynayay wilshirka aniga la'aantay maadaan noolaan kara wanday xataa guriga kama maqnaan kartid ha isku ciyaarna gurigaaga joog waxa dhahay xataa haddaan homeless noqonay dariiqa seexanay kula joog ma albaabkan ka booday wuu isoo dabagalay baan u malaynayaa hudheel baan karaystay lacagtii haystay qol baan ku karaystay saq barkii markaydu roobkii adduunkuna da'ayaba inta la ii soo galay banaanka la ii soo diray ilaan isagaa shaqaalaha lacag siiyey kuli marka hoteelka laga kala sexseexday dadka waaweyn rawaxaan kamarada intaas ka qarisaan banaanka u tuura shandadeedii anigii banaankii buc halkaa adinka dhulkan ku dhuftay qaska dhulkan ku dhuftay halkaa kaabad baan ku dhuftay dhiigga isku ka darsamay roobkii barti fadhiyoon yaabsanahay maxaa igu maagteen lacag ma haysta kalaan wax ku kiraysto ayaa bahal gaadhay ninkii ii qabay isku geeso agtaaga uu soo dego wuxuu iminka haddaba waa xilligaadii soo raaci lahay soo kuma sheegnaa diga maarmaynin markaasaan waxaan fahmay inuu isagu qisadan ka dambeeyo dan waxaan kuma raacayo roobka halkaa ha igu hayo laayaan ka dhimanayo laakiin adiga intaan ku raaci lahaa annagu halkay ku murmayna gaari kalaasi gabadh agteeda lagu soo qabtay qiyaaste waayo waa ninkii liinda dhalay weli alanka dabagalkii buu igu hayay dabeedna wuu ka soo degay isaga inta soo guri taajirkaasi yuu noo ahaa dabeetana daaqadii baa laga furay dallad baa roobkii looga soo hadheeyey roobka dhexdiisii buu iga soo kiciyey
weliba wuu i qaaday gaadhigii buu inku ururay wuxuuna ii weydiiyey gurigii maxaad uga timi aan ku geeyey markaasaan waxaan dhahay oo maxaan ka qaban lahaa guriga dee waad isoo badbaadisay nabad mahadsanid suu adigu ma inanteedad badbaadisay mahadsanid guriga markaan tagnay gurigiisiibuu ii geeyey oday 60 jirkaa baa la ii yeedhay wuxuu qolkaasaad martidu leedahay qolkaas seexo taleefon bii soo diray ninkaygu wuxuu dhahay waa aya ninka taajirka ah ee gaadhiga kalaasiga awatay ee ku qaaday maxaa kaa galay laakiin gabadhii anagu aanu ahayn saaxiibka ee habeenkii la fadhiday ma xasuusatan hoteelka ayaa warkii kooban bixisay waxay tiri ninkaasi waa taajirkii magaalada ugu weynaaye hebel ee kambaniyada magacaya magacaale lahaa ila laxay way ku jabtaa adduunya baydinka waraya adduunya waagi baa baryey halkii baan iska seexday qoyaankii roobkii oon ka raystay waagi baa baryey waagi markuu baryey gabadha yarad baa ooyday hooyaha iga teegi waan ku baryayaa waa ka odayg yaraaba waxay ugu dhahay 60 jirkaa waa markii koowaad nolosheeda ay hadasho ma laga yaabaa inaad caawisaad nala sii joogto anigu qudhaydu markan dambe meelaan qabta ma hayo runtaan kuu sheegaya laakiin isyar adkaynaya weli waxaan dhahay waan eegi doona gabadha yar waxay tii ballan ii qaad hooyay inaad iga tegin maya waan mar kale maya bay dhahday inaad mar kale iga tegayn waa ballan baan ku uri gurigii baan iska joogay shaqan raadsanayay gabadhii yarayd baa waxaa soo gashay horta asaga baa taleefon ii soo diray wuxuu dhahay wiilkaagii waa sakaraad nafti baa ka baxaysay soo gaadh waa ninkii qabay orod anigii dig gurigii baan garaacay markaas baa kugu baday qosol ninkiigii wiilkaygii maxaa dhacay soo noqotay waar ma soo noqonay maxaad adiga ma xanuunsanay buu dhahay adigan eegin caqlaaga waan ku ciyaarayn warqadda furiinkan kaa raba baan ku uri ma saxiixay u dhahay askaga soo noqday guriga reerkan kusoo noqday gabadhii yareed baan odaygii weydiiyey wuxuu dhahay waa dhalashadeedii barrito suuqaan aaday aniga oo soo adeegtay alaab kalena gaar baan u iibsanay oo waxaan rabay tartanka ubaxyada inaan ka qayb galo ayaa waxaa iga hortimi saaxiibadaydii markaasee waxay tiri halkan maxaad ka soo doontay dadka hantiilayaashaa baa ka adeegtay macnaha moolkay sheegaysaa marka aan joogo markaase waxaan ku dhahay qofaan jeclahay baan alaab uga gaday amaan ku odhan qof yari markaase waxay dhahday ninkaagii inankaagii cidlaad kaga tagtay dad kalena waad u adeegaysaa waan ogahay ninkaas inaad ku socoto ninkaas waa nin hantiilaa gabdhahana wuu ku ciyaaraa lacagtiisa ayuu eeganaya cidna ma rabo cidlo kaaga dhaqaaqaya waan hubaa inaanu adiga waxba kugu falaynin waayo waxaa ti doqontii aan ogaa inaanu waxba kugu falay waan ogahay ninkaagii reerkaagii waad ka baxday kaasina wuu ku soo eriyaya cidlaad ku dhacaysaa aynu ninkaagii reerkaagii gurigaagii baan hadda ku noolahay markaas waxaan ku dhahay meeshaas mar horaan ka maarmay wiilkayga iga joogo wiilkaygana waan kaxaysanaya maalin ay noqotaba markaas waxaan dhahday lacag maxaa kabadeed iyo midaad ku qaadato looyar maadigaa midnaba haysta waan aamusay marka waxaan dhahday hebel baad rabtaa inuu kaa caawiyo waxay sheegaysaa ninkii taajirka maya baan ku dhahay aniga xoogayga ku kalsoon waa shaqaysan doonaa lacagta looyarka waxaa jirta tartankii ubaxyadaa la qabanaya adiguna waa adigii farshaxanka ahaa aniguna waan kasoo qayb gelaya sidaad u aragta waa caadi baan ku dhahay gabadh yarad baa waxaan u sameeyey dhalasho aad u qurux badan aabaheed safar shaqo ku maqnaa waxaan diyaariyey qalabkii aan ku tartamayey meeshii baanu nimi aniga waxaan xidhan dhar simbala light green haamaha ma aragteen rinjigooda saan idinku macnaya greenna maha buluugna maha waa wuxu dhexeeya waa biyadhaca toob yaroo caankaasaan xidhnaa madaxa fulyar baan ku sitay kaba yaroo furan baan sitay sun yaro dambala oo dhulka yaala jambala boorsa yaroo aado simbalaan xidhnaa gabadhii baa meeshii timi iyo ninkii wada socda waa ninkaygii iyo gabadhii hore ad baa la igu jeesjeesay waxaan is idhi la hadal qofkii meesha managerka ka ahaa hadalba way ii ogolabad gabadhii intay xanaqdu waxaa dhahday gabadhu intay hadlaysa maad aamustid adigaba way ku sugaysay maanta intaad nala hadlaysay ixtiraamkaagu yaraabaa gabadhii lagu dhahay jigisaa dhahday naagtaa xun rifi lahaaye saasay dee hoosta ka dhahday garo oo dee ila fahan tartankii ubaxyadaa dhacay gabadha waxay keenay green iyo red iyo golad ama dahabi iyo oraaj iyo bunni 5 kalaroon midna mid qaadanayna ubax ka soo samaysa oo dhalaalna si ugu wada raaxada kaga celisay adigu waa loo soo cabtumay laakiin dadka kuma qancin wax weynna wuu ahaa waxaa dhahay adiga hadda dumarkii kale adiga markaygii bay soo dhaxal adigana waa markaagii dharkan xidhanahay ubax u eeg light green biyo yar gunta ku haya caleemo yar roosa ayaan keenay dadkii oo dhan way la dhaceen gabadha marka waxaa dhahday waxayaa wax ku falaya tii markaase gabadhi maalinta waxay u kaadi